وانكو سلامي صاحب واديقا صدنا بركة دالن حتى هاديقو ديهال كودين هاي واديقا سيحان كاريلا مدحاق واحد قوح يكون فكر حتى واحد مودعين عالمكو مدحاق قوح يردمية وكونيها عالمكو مدحاق قوح تشوبو يضو حاس وضد يسحمدها يكو حيرينيين حتى نكريني ما يا دريميسا دمان تدو ياركيانا ضدي قاقا وياركيان كوركاقا غلفسان يسقو ضهاريسو سيدو قنبها اوكالي توشا يادا ادو قادق تاين سيبودها قوها تشريعي qofna ma arkay gudaha istabacsan ee sida qoriga xargalay oo kale ah dhammaantood way arkayaan dhool cadayntaada markasta dhaqankaaga ku sawran qofna ma ogeyn sugaysa intaad gaar noqonaysa ilmada dhaayahaaga ka daaysa ay dhabankaaga qoynayso dhammaantood adiga ayay ku tiirsan yihiin adiga ayaana baray inay dhabarkooda kugu tiiriyaan oo aad garabkooda iyo gaashaankoodaba tahay laakiinse talow sidee ayaad uga dhaadhawin in xataa dadka adag ay soo maraan xilliyo wiiqo daciifnimo ah iyaga laftooduna ay u baahdaan garab iyo gabbaad balse kuma dhacdid inaad taagdarradaada muujiso ugeed kuma odhan karo waan ka daalay taagnaanta inaan yara jiibsado ayaan rabaa ha u bixin saaxiib ha u bixin waa qadarkaaga inaad noqoto sida shamaca isagu gubanaya suu inta kale wax ugu ifiyo adkayso laga yaabaa adkaysigaagaasi inay in badan bidhaansanayaan oo iyaguna aad adkaanshiyo ka sii kororsanayaan haddii aad liicdan ay kula liicayaane waan ogahayna daashay si ma haysatid badhaadha iyo barwaaqo suuran kuu saamaxaya inaad yaro nasato oo askartu uma nastaan inta ay dagaalka ku jiraan si kastoo ay u daalaan bal hadda in yar yara hako qalbigaagana yara amahay saaxiib yaanad maalin igu odhan adduunkan dadku waxay raacayaan keliya dhabbooyinka qadarkooda ha ku diri naftaada fikirka xadka baxa ah qalbigaagana ha ku mashquulin waxaan waxba ka qaban karaynin amarka ilaahay waa fulaya waa marag maduun si kastoo ay dhibaatooyinku u dhibataan ridaha suurtagalka inay u xidhmaan adiga waajibkaagu waa inaanad guclada dayninuun keliya waa inaad socotiduun si xilliga aad gaadhayso sida aad u gaadhayso iyo halka aad gaadhaysaa waa qayb maqan oo ilaahay cidaan hayn aanay ogeyn arrin qurawn haylaawin iimaanka ku hay mas-uuliyadaha qaar waa kuwa cidda siida loo doortay ilaahay jidkiisa uma adeegsado qof aan daahir badhax tiran ahayn innaga oo aadamaha ayaan agab wasakhaysan u adeegsan inaynu hawleenna ku qabsanno waa innaga oo basharaa bal ka warran ilaahayna isagoo ilaahay ah marba haddii uu ilaahay jidkiisa dartii ku adeegsaday qalbigaaga ayuu og yahay una raalli ku yahay intaas kadib ma jiro waxay suuro tahay inuu caqabad amba kadeed kugu noqda halgankuu adag yahay saaxiib si wanaagsan ayaanu ogahay samiyaanay kugu soo dhicinba xataa madax buuxsina ku ahaatee in aanu ilaahay halgannada ugu adadag u dirin cid aan ahayn halyadaada adag نبادين الصاحب